caawana waa la ciyaarayaa ciyaaro badan oo ka tirsan horyaalada waaweyn ee qaaradda Yurub runtii Ingiriisku ciyaaraha ugu muhiimsan ee jiri doona waxaa kamid ah Tottenham iyo Arsenal waa ciyaarta ku soo horeysa caawa waxaana soo gali doontaa todobada fiidnimo iyo barka bariyahan waxaan arkay ciyaaraha habeenka dhacaya shubka ah waa la isku kor dhacayo barajaba la galayo micno waa la isku kor kufaya oo midnimo badinayo runtii waan arki doonaa caawa Spurs hadii ay sanadkan u tartamayaan Premier League oo yihiin tartamayaal cadcad waa inay Arsenal garaacaan runtii Arsenal waxay leedahay waa inaan caawa ragnimo muujinayo uu leeyahay Captain Aubameyang oo aan ku soo laabanaa wadada guulaha waxaan nahay aan dib u cadeynaa marka Arsenal toddoba fiidnimo barka way soo gali doontaa bal haddaanu ciyaaraha caawa ay ciyaarayaan hadaba ciyaarta ugu soo horeysa Arsenal iyo Tottenham ay ciyaarayaan waxa lagu leeyahay ninkii Harry Kane ahaa ayaa la filayay inuu ciyaartan ciyaari karo inkastoo ciyaartii Premier League dhaawac ku seegay balse inuu ciyaari karo waa laga yaabaa balse Toby Alderweireld ayaa wali ma taqaan xaaladiisa aan loogeyn balse waxa laga yaabaa isaguna ciyaartan inuu ciyaari karo kadib markii dhaawac ciyaaray uu soo gaaray ciyaartii ugu dambeysay balse Thomas Partey ayaa isagu ku dhow inuu ma taqaan fit ku soo laabto waxana suurtagal weyn baa leeyahay inuu caawa ciyaarta ku soo laabto Partey Partey Arsenal way tabeen Partey reer Partey inuu caawa soo laabanayo ayaa la dareemayayo midka Afrika shubka ah mid kale Luis ayaa mar kolba madax loo soo xiri doona kadib isku dhici isaga iyo ninkii Wolves u ciyaaray waxa la saadalanaya laakiin Arsenal in laga badi doono ciyaartan waliba Arsenal ayaa ku bilaabashada ugu xumeed taariikhda Premier League ayaa lagu leeyahay mid kale Tottenham ayaa doonaysa in ciyaaro suxiga ay kulanka North London Derby ay garaacdo Arsenal markii ugu horeysay tan iyo 1980 ilaa 82 mid kale ogow nimanka Tottenham hadda bariyahan waa laga yaabay waa soo xoog badnaadeeno maxay la 9 ciyaarood hadda la soo dhaafay Spurs waxba guul dar kaban soo gaarin Premier League waa kooxda iminka hadda marka laga hadlo Premier League ugu unbeaten dheer weeyaan 9 ciyaarood aan wali laga badin weeyaan mid kale la soco kuwa kanu hatta markii ugu horeysay bay noqon karayaan 5 ciyaar isku xigay gurigood aan gool looga dhalin markii ugu horeysay muddo 2 sano mid kale ogow Jose Mourinho ayaa unbeaten ciyaaraha gurigiisu kaga hor imaanaya kooxda Arsenal yani Jose Mourinho wuxuu aad ugu qatar badayaba hadii ba Arsenal gurigiisa ugu timaado uu garaaca yani Arsenal asaga markii gurigiisa ugu yimaadaanba waxa uu garaacay 6 jeer wuxuuna bareejo la galay 4 jeer mid kale Kane ayaa caaw noqon doona ninka ugu goolasha badan kulanka North London Derbies uu dhalinto haduu caaw goolaliyo yani noqon doona ninka ugu goolasha badan kulankan waxay hadda min 12 gool isla leeyihiin Emmanuel Adebayor iyo Bobby Smith mid kale The Gunners inay hadda haysato 10 ciyaarood kadib 13 dhibcood waa dhibcoodii ugu hooseeyay tan iyo 1982 waa dhibci ugu hooseeyay oo ay nimankan Arsenal helayaan marka waa kaayo qoliya Arteta hadda waxa lagu leeyahay mataqaana 5 jeer ba Arsenal laga badiyay 8 ciyaar la soo dhaafay Arsenal galab sana waxa ay la mid tahay 22 ciyaar ugu horeeyay Arteta markuu kooxdan qabanay inta laga badiyay waxa hadda la mid yihiin oo 22 kulan ahaa waxay la mid yihiin 8 kulan oo la soo dhaafay horyaalka waxa lagu leeyahay 5 jeer ba cidii la garaacay Aubameyang ayaanta waa ka jiftaayo Arsenal waa galab wararka doona kulay waxay caawil yimaadaan oo Arsenal habeen iska kacsan tahay laga yaabo in caaw ku dhagan Tottenham waa laga yaabaa habeen baa jir Arsenal iska kacsan tahay iska dhaaf Tottenham yaala ay wax ka qaban karin laakiin ciyaartan ka hor waxaan wada leenahay aaminsanahay oo qof kasta uu aaminsan u leeyahay war waxa soo Arsenal galabka iska ma celin karin Tottenham laakiin Arsenal mararka qaar way iska kacdaayo wararka doona caawa